السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada asxaabay kanaalkeena fursadka labadii muuqaal ee hore waxaan ku sharaxnay sida loo install gareeyo TMS ama template sidoo kalena loo qoro post loona dhigo website-kaaga marka TMS soo install gelisid oo blog posts aad dhigto website-kaaga wuxuu ekaan doonaa sida halkaan kaaga muuqato sida u jeedin website-kan ma nidaamsana qofkii soo booqdana waxa laga yaabaa inuu ku wareero muuqaalkan gama waxaan kuu tusin doonaa sida aad website-kaaga u nidaamin lahayd oo u qurxin lahayd oogana dhigi lahayd website headers iyo footers leh sida website-kan oo kale oo nidaamsan insha Allah hadduu ilaahay idmo isla socod wanaagsan ugu horreyn marka dashboard-kaaga joogtid waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay appearance kadib customize ku dhufo meesha ku qoran tahay klik ku sii marka ku siisid waxaa kusoo baxaysaa shadan hoos u bax meesha ku qoran tahay site identity tag site title-ka bedel waxaa ka dhigtaa title-kaaga site-kaaga magaciisa ka dhig tagline-kana waxaa waaye site title-ka wax ku xiga waaye oo kor ka soo muuqanayo ama website-ka marka la raadiyo asagana bedelo waxa rabtid ku qoro step-ka xiga waxaa waaye inaan menus sameyno waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay menus kadib create new menu taago markaad taabatid magaca u bixi main menu camal waa midkii headerka midkii la dhigayay next dheh kadib add items meesha ku qoran tahay taago pageska aad rabtid inay kor kaaga soo muuqdaan ku dar linkiyadooda plus taago markaa ku daraysid saddexdaas page home iyo about iyo contact us sidoo kale categories ku dari kartaa categories haday ku samaysan yihiin muuqaalada hore ku sameynay sidoo kale oo ku dari kartaa plus le taago intaan markaa aad ku dartid kadib hoos u bax meesha header menu 1 ee ku qoran tahay tixar sidoo kalena mobile menu meesha ku qoran tahay tixar intaas markaa samaysid kor ugu bax menu haddana hoosaa sameynaynaa create new menu taago markaad taabatid magaca u bixi sidoo kale asagana lower menu iska dheh waa midkii oo footer-ka lagu darayay next dheh sidoo kale add items taago pageska badanaa lagu daro waxaa ka mid ah about us contact us iyo privacy and policy sidoo kale mid kale sii jiro oo la terms and conditions ku dar asagana plus taago intaas markaa ku dartid hoos u bax waxaad taabataa footer menu tixar labadaas menu u baahnin kadib hadda headerkii footer-ka sameynaa kor u bax waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay headerku wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qaybta dhexe oo main row ayaa la dhigaa loogada iyo menuska qaybtaas la dhigaa menu soo qabo drag and drop samee qaybta dhexe main row dhig marka intaas samaysid kor ayuu ka soo muuqanayaa menu samaysay main row had soo jeedin way kala hormarsan yihiin about us inay gadaal jiraan badan lagu talagalay iyo contact us marka rabtid inaad soo kala hormarsid gadaal u laabo meesha hadda menus ku laabo menus ku dhufo kadib main menu ku dhufo drag and drop samee kadibna about us iyo contact us gadaal keen header ku laabo haddana serjigan kore badanaa lama isticmaalo markay blog tahay meesha oo kore looma isticmaalo qalad iska saar si iskaga bixisid kadib waxaa ku dhuftaa logo hadda sawir ahaan u haystid select logo dheh soo albadgeli upload soo dheh sawirkaasi dooro kadib select dheh haddana haddaa logo soo upload gelisid title-ka waa iska xiri kartaa haddaa looga haysa laakiin title-ka iska furo sidoo kale meeshan waxaa ka heli kartaa logada cabirkeeda 20 ka dhig haddii isku ahayn kadib ka soo bax main row meesha ku qoran tahay taago background-iga blue ka dhigana meesha background-iga ku qoran tahay color taago kadib blue ka dhig fartiya madow noqotay si farti cadaan saa uga dhigtid waxaa samaysaa menu 1 meesha ku qoran tahay taago kadib font color kadib cadaan ka dhig hadda way isku soo baxayaan
headerka intaas ayuu ku dhamaaday. Waxaa xiga aan edit garaynaa footerkan sidoo kale le waaye wax ma kala duwano. Footerka waa qaybta ugu hooseysa ee website-ka. meeshaas hadda copyright qoran tahay waa footer menu-ga aan sameynay soo qaado drag and drop ku samee. qaybta ugu dambeysa asaga 3 waxaad ka kooban yahay sidee camal. qaybta ugu dambeysa la dhigaa badanaa. qaybta ugu dambeysa inaad dhigto markaa rabtid waa inaad bixisaa copyright qaybteeda inaad bixisid kadib waad dhigi kartaa footer menu sidoo kale hadda background-ga markaa bedesho inaad rabtid bottom row meesha ku qoran tahay ku dhufo. design-ka tag background-ga sii taawo colorkaas kadibna blue ka dhig kadibna blue noqonaa. fartana cadaan ka dhigta daartid sidaad le footerka tagay cadaan ka soo dhigay. footerkan intaas ku dhamaaday. waxa way post-yaashan oo isku dhex yaacsan in habeeno. waxaad tagaysaa meesha qoran tahay blog posts. waxaad doortaa meeshaas qaybtaas saddexaad oo grid-ka meeshaas 6 and 5 ka dhig haddii isku yahaan. kadib waxaad tagtaa card option meesha qoran tahay. waxaa iska xirtaa meesha ugu koreyso post meta iska xir. sidoo kale excerpt-ga iska xir. marka inta iska xirtid post-yaashi blog posts-ki title-ka iyo featured image kala hormari daartid kadibna qurux ku soo baxaa sidaas oo noqonaa. waxa xiga waxaa waaye keydka risk inaad sameysid. sidoo kale keydka risk blog posts-kooda inaad edit garaysid. waxaad doorataa asaga qaybta ugu horeeya dooro meeshaas 6 and 5 mid ka dhigo card option tag kadib excerpt-ga iska xir sidaad camaladu ku furan yahay inta kale sidoo ku day. sidoo kale keydka riskana intaas ku dhamaatay. hal waxa uu kaliya ayaa haray headerka iyo blog posts ka dhexdooda waxaa la dhigaa badanaa social icons iyo search. waxaa sameysaa header tag kadib social icons ka taawo drag and drop ku samee qaybta ugu hooseysa dhig. sidoo kale search-ga qaybta ugu hooseysa geeskeeda dhig. marka intaas sameysid waxaad taabataa bottom row meesha ku qoran tahay click ku sii design dheh background-ga sidoo kale bedel asagana wax yar qurxi. intaas markaa dhameysid ka bax kadib website-ka saas kugu qorsamay aad studio ujeedaa nidaam waaye. kadib waxaad taabataa publish markaad taabatid kadib waa ka bixi kartaa qaadkaas taawo. siduu isku bedelay aragna website-ka. intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. ha ilaawin hadduu muuqaalku ku qanciyay inaad like saarto subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena. waa mahadsan tahay.